gudoomiyaha ururka danska sameeyay dalka Denmark ahna la taliyaha wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga caalamiga wadamada Scandinavian-ka Axmed Cabdikariim Ducaale walhad oo Home Cable TV nagu soo booqday ayaa waxa uu ka waramay aan ka waraysanina xaaladda guud ee dalka Soomaaliland iyo waliba arrimaha maalgashiga ee dalka Soomaaliland iyo halka uu marayso mas'uuliyadaasi loo igmaday waxaan uu ka waramay in ay dalka Soomaaliland jiraan fursado badan oo lagu maalgashan karo dhinacyada kala duwan ee kheyraadka dalkaasi u leeyahay waxaan uu tilmaamay in wadamada Scandinavian-ku ay yihiin dalka dharagsan hanaanka dimuqraadiyadeed ee Soomaaliland ka hana qaaday sidoo kalena waxa uu tilmaamay dalka Denmark uu yahay dalkii koowaad ee Soomaaliland si toos ah u siiyay mucaawinadiisa taasina ay ku dhiirigelin karto ganacsatada reer Denmark inay maalgashadaan dalka Soomaaliland sidoo kale waxa uu xusay in looga baahan yahay ganacsatada reer Soomaaliland in ay dalkooda iyaguna maalgashadaan si ay u sameeyaan horumar gudoomiyaha waxa hadaladiisii kamid ahaa marka dawladdu runtii gaar ahaan dawladda Denmark waxa weeye dawladdii ugu horeysay ee aasaastay ama horseeday in Soomaaliland loo sameeyo sanduuq kadib markii ay soo jeedisay in Soomaaliland soo jeedinta ay dadka Denmark u lahaa marka runtii dalka Denmark waa dalka ugu horeeyay inta ka hadlay waxaana ku raacay waddanka Britain oo isaguna ku raacay markii dambe wadamada Europe intooda badan oo Sweden ay ka mid tahay oo ku raacay marka arrintaas waxa weeye waa arrin aad u sii dhiirigelinaysa maadaama markii hore mucaawinada la siin jiray wax ka horjoogsanaya ma jiraan in bulshadii kale ee private ka ah ee wadamada ku dhaqmayna ayaguna ku daydaan qaabkan ay dawladdu raacday iyaguna ma sameeyaan maalgashi waa Maxamed Haruun iyo Cabdiladiif Cantar Home Cable TV Denmark